ما شاء الله. هذا ملقاعتي هرود هيد بنكو درينا عبيتان aan la arag beerka la sifeynaya xiidmaha la sifeynaya meel walba la sifeynaya ma sha Allah cabitaan aan la koobka biyo aan ku darayna iyo qad waa kan hadda shiidayna laba koob biyo aan ku daray waxay dawo ka yihiin inay beerka sifeeyaan kaneecadu meelaha xanuunada ugu badan ku disho waa beerka marka waa beer sifeeyo weyn ma sha Allah kolba labada hay ma sha Allah hadda liin dhanaantii baan ku darayaa hadda waan meerayaa ma sha Allah cabitaan cajiib ah ka soo baxaya ma sha Allah cabitaankeeni qashin saar ma sha Allah cabitaankeeni qashin saaraha ahaa waa kan xiidmaha iyo beerka ayuu ka saaraya qashinka kaneecadu waxay dhigataa beerka ayay waxyeeshaa dadka kaneecada imika iyo fiifarku hayso aad buu ugu wanaagsan yahay hays oo dhan waxaan oo dhan cabitaan aad iyo aad u wanaagsan weeyaan ma sha Allah annagana ilaahay ha noo calfo idinkana sidaas oo kale u samaysta ma sha Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومضى المسلمين تعمل كستور جوجتان هذا قدرة هالسة أو قناع وكذا شيء اللي يبغى ودن كأنه كتيرة ما شاء الله أنت يودمتي الله ونحرسته أنت بقتنا الله عافية runtii jirkan wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo gudaha laga nadiifiyo taas saddex laamir baan ka soo qaatay ma sha Allah waxaynu ognahay faa'iidada toonta waa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii uu carabaabay ayay kow ka tahay masaakiinta lagu qaylinaya dawada ku jirta haddaan macnaha sheego marka runtii waan dhilaynaa saddexdan imika ma sha Allah abalkan waynu naqanaa faa'iido badan buu leeyahay kan greenkan oo kasii faa'iido badan yahay kacas ma sha Allah حبة تفاحه دكتوركي كافي بيسا وحبا كجرا ما شاء الله لقى ما شاكين كرو فايدة كجرتا ما نلبون كشاكينا وحيابها ليفشيد كأد قونا أكسن بيرك يدول كان علايس كفولي بكتيريا دا أي مركا أي سون نوكتو دي قاقا أي كبلاريس قاقا يريار عن روفتي دا بهاشان ay kasoo ay dawadeedna qofkii markay ururto cudur ku noqonaysaa marka kaneecadu marka waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto waxa kamid ah in la barto dhirta la beerto ee guriga agtiisa ee ay ka cararto kaneecadu in la barto waxba badan baynu u baahanahay inaynu nagu barano laftirkeena oo aynu aad ugu baahanahay caafimaadkeeda ku jira jinjirtan waan u baahannahay wax la iskuma badiyo intaa yar rasuulkaas oo kale haddaad waxa isku badiso fitamiinada la qaadanayo haddaad isku badiso waxaad isku badiso cudur baa laga qaadaa wax walba wax yar baa laga cabaa oo laga cunaa jinjirtu waxay caawisaa dheefshiidka iyadna aad u caawisaa waxaani beerka iyo way sifeynayaan xiidmaha khaasatan xiidmaha haddii ay sifoobaan waxyaabaha sifeeya xiidmaha waxaan oo aan samaynayo dhan ku jiraan jirka oo dhan qashinka waxa ka saaray ka mid yihiin ma sha Allah ilaahay bayna siiyay kani waa mintka waxa u dhow oo aan wadankeena ku garanayo waxa jirta bahasha digri la oran jiray oo caruurta geed saraha subagana waa lagu aad bay bada u ahaan jirtay caruurta caloosha markay ma jirto waa loo karin jiray bahalkan wuxuu ka caawiyaa dadka waa waxyaabaha shaahiyaaba dadka u baxaa ka dhigtaan shaah kaleba ma cabaan caafimaadkiisa lagama sheekayn karo aad buu u wanaagsan yahay marka isaga laftirkiisa intaasaynu uga baahannahay ma sha Allah waxaan u baahannahay xabad dhan oo liin dhanaana waxaani waa waxa beerka sifeeya caloosha sifeeya xiidmaha sifeeya qofka marka ay kaneecadu ku dhacdo waxyaabaha loo baahan yahay inuu qashinka saaro weeyaan jirka beerku inuu qashinka iska saaro oo u sifaysmo u baahan yahay
cadaankuna waxay yidhahdaan antioxidant wixii qashinka saaraya tan oo dhan waan u baahannahay xabadan oo dhan maasha allah. kan iyada haaf baan ka qaadanayaa. tanna waa limekuna way wanaagsantahay, aad bay u fiicantahay. taa biyaha badan baan u galay, waa xabad iyo bar. qof walba inta yar u helo. haddaad liin dhanaan iyo in yaroo toona isku hesho, haddaad xabad abalah iyo toon yar isku hesho, biyahaagaasoo ku darsanaysaa. waxa aan keenaa kolba inta yaraad ka hesho. haddaad sinjibiil iyo toon yar isku hesho, intuba waa dawo. inaad waxaan oo dhan isku darto xataa waajib kuguma aha adiga moogti, laakiin waxay noqonayaan quwad bay yeelanayaan marka intan la isku wada. maasha allah, huruudana waan u baahannahay. in malqaacadda yar baan ku darsanaynaa. in jidhka qashin waa organic maasha allah. in jidhka qashinka laga saara waa muhiim. haddaad aragto meelay kaneeca ka dilaacday, meel xumadi ka dilaacday, jidhka in la nadiifiyo ayaa muhiima. waxaan sheegnay in waxa aan cunto culus la cunin, aad cunto waxa ka saara qashinka jidhka maasha allah. cuntooyinka fiican ee fudud maasha allah. waa kan abalkii baan hadda ku ridaynaa. maasha allah. toontii baan ku ridaynaa. toontii abalkii baan hadda ku ridnay. sinjibiishii waynaga nidhi waxba la iskuma darinayo, mid walba wax yar baan ka qaadanay. hadda waa kan midkii baan ku ridaynaa. waxaan ku daraynaa taas mugeed biyaha markaan kusoo shubay imika maasha allah. hadda malqaacaddii huruud ahayd baan ku daraynaa. cabitaan aan la arag, beerkaa la sifeynayaa, xiidmaha la sifeynayaa, meel walba waa la sifeynayaa maasha allah. cabitaan aan la koobkaa biyo aan ku daraynaa iyo badh. waa kan haddaan shiidaynaa. 2 koobo biyo aan ku daray. waxay dawo ka yihiin inay beerka sifeeyaan. kaneecadu meelaha xanuunada ugu badan ku disho waa beerka, markaa waa beer sifeeyo weyn maasha allah. kolba labadaad hays maasha allah. hadda liin dhanaantii baan ku darayaa. hadda waan miirayaa maasha allah. cabitaan cajiiba ka soo baxaya maasha allah. maasha allah. cabitaankeenii qashin saar maasha allah. cabitaankeenii qashin saaraha ahaa waa kan. xiidmaha iyo beerka ayuu ka saarayaa qashinka. kaneecadu waxay dhigataa beerka ayay waxyeeshaa. dadka kaneecada iminka iyo fiifarku hayso aad buu ugu wanaagsan yahay. ha is odhan waxaan oo dhan ma haysatid. haddaad huruudda haysato, haddaad toonta haysato, haddaad liin dhanaanta haysato, labadaad marba haysataad isku darsanaysaa. anigu waxaan oo dhan waan hayay maasha allah. cabitaan aad iyo aad u wanaagsan weeyaan maasha allah. annagana ilaahay ha noo calfo, idinkana sidaasoo kale u samaysta maasha allah.